maxaabiista maanta waxaan ku wareejiyey awrkaa inaad iga gaarsiisaan ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa. xukuumadda Soomaaliland ayaa saaka xabsiga dhexe ee degmada Baki ee gobolka Awdal ka sii daysay Suldaan Ibraahim Suldaan Sulub Nuur Warsame oo ka mid ah salaadiinta waaweyn ee dalka Soomaaliland. 42 maalmood ayuu suldaanku ku xidhnaa xabsiga dhexe isagoo halkaasi ka hadlay waxa uu ka mahad celiyay sii deyntiisa isla markaasina waxa uu neef geela guddoonsiiyey saraakiisha degmada Baki ee gobolka Awdal isagoo ugu talagalay inay u qalaan dhammaanba maxaabiista ku sugan xabsiga. marka ugu horeysa Ilaahay baa mahad leh, marka labaadna waxaan u mahadnaqayaa halkan aan joognaa. marka hore waa xabsigii dhexe ee degmada Baki ayaan joognaa. aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa intii aan wada joognay taliyaha xabsiga dhexe Ibraahim Barre Ceelaabe. si wanaagsan oo gobonimo leh ayaanu intii aan wada joognay u wada dhaqanay. isagana waxa ku xiga taliye ku xigeenka Xasan Suubane Ismaan oo isaguna barbarkayga taagan iyo ku xigeenada kale halkan jooga iyo dhakhtarkayga gaarka ahaa waxa weeyaan askar. aad iyo aad ayaan dhammaantood ugu mahadnaqayaa. waxaan leeyahay halkan waxaan joogay 42 habeen ayaan halkan ka soo toosay xabsiga dhexe degmada Baki. runtii si wanaagsan oo qurux badan ayaan halkaa intaa ugu noolaa. maanta halkan waxa aan intan u soo baxay maxaabiistii ku xidhnayd waxaan guddoonsiiyey oon awrkaa halkaa taagan baan guddoonsiiyey anigoo u bixiyey sadaqo waalidiintaydii aabbiyi hooyo ayaan u bixiyey. mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadnaqayaa degmada Baki iyo dadka ku nool gaar ahaan xildhibaankayga weyn Cali Xaamud Jibriil oo ah gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliland. 100% ninkaas si weyn ayaan aad iyo aad ugu mahadinayaa. aad iyo aad baanan u soo dhaweynayaa. aad baanan ugu mahadnaqayaa. runtii degmadan Baki waa degmo rag badan oo madaxda Soomaaliland ay ka soo jeedaan sida madaxweyne ku xigeenka Cabdiraxmaan Cabdilaahi Saylici iyo Cali Xaamud Jibriil oo isna gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka. rag hore oo fara badan ayaa degmadan ka soo jeeda oo qarankan iyo dawladii hore ee Soomaaliyeed hore madax ka ahaa sida Muuse Rabiilo Good waa wasiirkii hore waxbarashada markii Soomaaliya isku jiray iyo ninka la yiraahdo isaguna Bashiir Farax Kaahi oo isna ka soo jeeda degmadan. raggaas oo dhan baa ka soo jeeda. waxaad moodaa degmadan inay tahay degmo madaxda dhasha. markaad eegto ilbaxnimada iyo siday u nool yihiin waad garataa in dad ilbaxi meesha degan yihiin. waa dad beeralaya degan ilaa dhowr boqol sanadood deganaa. beero waaweyn bay ku leeyihiin. dadka wax tabcaday bay ka mid yihiin. wax yar baa ka dhiman oo in wadooyin loo sameeyo intaas ma ka dhiman. intaasna insha Allah waynu gaari doonaa. dadka kale oo mahadnaqaya waxa ka mid ah inantii 42 maalmood cuntada ii sameynaysay ee uu ku ballamiyay xildhibaanku Cali Xaamud Jibriil ku ballamiyay magaceedana la yiraahdo Hodan Maxamed Cabdilaahi. iyadana aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa. jazaakallahu khayr baan leeyahay. xaabista maanta ay taariikhdu tahay 12 bishii tobnaad 2020 waxaan ku wareejiyey awrkaa inaad iga gaarsiisaan ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa. intaa kadib hadalka waxa ka daba qaatay taliyaha xabsiga dhexe ee degmada Baki ee gobolka Awdal iyo sidoo kale mid ka mid ah gudida goobta ku sugan degmada Baki. dadweynaha dhammaan anigoo leh uliya diir dhammaantood baa hadii la hayraa oo dhammaantood baa ka kooban yihiin. aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. waxaan leeyahay abaar raaga rag baale insha Allah bidmillaahi kariim. anaguna deegaan ahaan waanu idii haynaa abaalka insha Allah hadii la hayraahdo. anoo ku hadlaya gudida halkan timid insha Allah bidmillaahi kariim afkoogiyo gudoomiyahoogi ah. aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. waxaan leeyahay insha Allah bidmillaahi kariim meel baad noogu qoran tihiin hadii la hayraahdo insha Allah bidmillaahi kariim. ilaaha markuu horeysan noo sahalay inaanu halkan nimaadno nabad ku nimaadno eenu suldaankana halkan anaga iyo isaguba nabad isku aragno oo nabadna kaga baxo maanta halkaa iyo intii sahashay ee xukuumadda qaybaheeda kala duwan ama maxkamadda ha noqoto ama dhinacyada kale ha noqotee ee noo sahashay noo maaragtay tasiilaadka noo sameysay ayaan u mahad celinayaa iyo raggii
inta badan ka shaqeeyey arrintaa oo aan habeeniyo dharaan fadhiisanin iyagana waanu mahadnaqayaa intii suldaanka u soo ducaynaysay iyo intii cod ugu ducaysay iyo intii hoos ugu ducaysay dadkiisa ahayd niyada uga soo ducaynaysayna waanu wada mahadnaqayaa reer bakina ama jeelka ha noqoto ama shacabka ha noqotee waan u mahadnaqayaa iyagana. asalaamu calaa rasuulillah sallallahu alayhi wasallam. marka koowaad waxaan mahad leh ilaahay, mar labaad waxaan u mahad celinaynaa suldaan ibraahim suldaan sulub oo muddo ku xidhnaa xabsiga degmada baki oo xorriyaddiisii dib loogu soo ceshay, isla maantana la guddoonsiiyey goolka aad arkaysaan ee quruxda badan. suldaan waan kaa guddoonnay, waanad ku mahadsan tahay. suldaanku intii uu xabsiga nagula jiray si fiican oo aad iyo aad u qurux badan buu nagula noolaa. nin odayo oo waayeelu ahaa oo mas-uul ah, waana uga mahad celinaynaa maanta sadaqada uu nagu wareejiyey, waalidiinta uu u bixiyeyna ilaahay ka gaadhsiiyo ka sawaabiyo. suxufi cisqi MM TV degmada baki ee gobolka Awdal.